walaalayaal waa walaalkiin maxamed sheekh ibraahim kenyaawi waxaan runtii caawa idinka salaamayaa waa magaalada muqdisho waa caasimadda dalka Soomaaliya bersamaadka Allah ku soo celiyo dhulkeeni hooyo walaalayaal waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed dal iyo dibadba meel walbo ay joogaan Allah idinku amaansado meel walbo aad joogtaan waxaan idinka soo salaamayaa waa caasimadii dalkeeni hooyo xamar ama muqdisho waxaan soo gaaray runtii waa xamar cadeey ilaahay ha dhowro ilaahay cizigeedii ha soo celiyo runtii waxaan ka maqnaa muddo aad u badan ugu yaraan waa 27 sano laakiin 27 sano aan ka maqnaa dhulkayga hooyo runtii maalinkan ka tagayay oo ahaa maalmihii ugu dambeeyay berisamaadka ilaahay ha inoo soo celiyee ma aanan tegin keligay dhulkayga hooyana kama aanan tegin magaaladii xamar cadayna kama aanan tegin bal xamar caday waxaan ku sii qaatay qalbigayga dhulkayga waxaan ku sii qaatay qalbigayga dadkaygii waxaan ku qaatay qalbigayga intii muddo aan maqnaana waxaan ku sitay runtii qalbigayga waxaan kala soo hadlayay qalbigayga waxaan wax uga sheegayay qalbigayga waxaan farxadda iyo murugta kala qaybsanayay waa qalbigayga maantana qalbigii ayaan la soo noqday runtii qalbiyo qurux badan ayaa isoo dhaweeyay shacab iyo madax culimo iyo caamo rag iyo dumar yar iyo weyn runtii qalbi qurux badan baa igu soo dhaweeyay labadii bariye aan joogayna waxaan arkay runtii qalbigii aan siday ayaan ku arkay halkan waxaan runtii ka carfiyay halkan saxaxadii berisamaadkii inay dib u soo noqotay way soo noqotay runtii haddii halku dhigeenu ahaa oo la dhihi jiray xamarey aaway xamarey waa la helay xamarey waa la helay waxaa heshay dhalintii Soomaaliyeed waxaa heshay dhalinta runtii qalbiyadan aan arkay ee quruxdii ugu soo dhaweeyay naxariistii ugu soo dhaweeyay farxadii ugu soo dhaweeyay ayaa helay xamar waa la helay xamar dadkeedii baa helay mutacallimiinteedii baa helay cuqaasheedii baa helay runtii wadadii cagta ayaanu saarnay runtii dib u noqon mayso dhalinta aan la kulmay ee qalbiyadii soo dhaweeyay waxaa ka guuxayay xamar dib u laaban mayso Soomaaliya dib u laaban mayso horay u soconaysaa waxaan u imid runtii waa in aan dhiiri geliyo dadkayga waa in aan dhiiri geliyo shacabkayga dadkii meediyaha igala socday sanooyin aan kala hadlayay in aan dhiiri geliyo waliba maadaama qalin wax lagu waayay intii aan ka maqnaa oo dhan dhalintii wax baranaysay maadaama shaqo la'aan ay dhacday dawladdii shaqo ku filan runtii aanay u heli karaynin qalin haddii wax lagu waayo qof walba wax barta ilaahay ma uunan waayin xoog inaan dhiiri geliyo barnaamijkii ahaa shaqayso ha shaxaadine in cilmiga aynu baranaynay 10 sano waalidiintu xoog iyo xoolo ay ku bixiyeen ay ku daaleen runtii haddaan xafiisyo ku fariisan weynay haddaan maalin kaga taajir weynay shaqo ku heli weynay in cilmigaas uu na tuso in aan maallo xooggeena in aan maallo muruqeena in aan farsamada ku dhaqaaqno ilaahay wuxuu ina siiyay xoog caafimaad ayuu ilaahay ina siiyay aqli ayuu ilaahay ina siiyay dhalinyaro da'yar ayuu ilaahay inaga yeelay cilmigii aynu baranay in uu na tuso in aan wax ku soo saaranno xooggeena kaga soo saaranno dhulkeenan dihin ee barwaaqada ah ee noocyada kala duwan ee khayraadku maaragtaa ay dul ceegaagto inaan ku soo saaranno xamar waa khayr xamar waa nabad inta aan joogo insha Allah taala waxa aan dhiirigelin doono waa wacyigelin diini ah arrimaha diiniga ah arrimaha iimaaniga ah ruuxaaniga ah ayaan dhalinyaradeenna runtii u dhisi doonaa haddii meediyuuna digaarki jirteen
waan idin hor fadhiyaa waan idin hor fadhiisan doonaa meel walbana waa tegi doonaa hawsha waa wada qaban doonaa runtii hawlaha aan qaban doonana waa hawlo uu aayi doono runtii dalkeenna qalbiyadaas aad igu soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa halku dhigeennu waa shaqayso ha shaxaadeen